سلام الله عليكم ورحمة وبركاته دمانتين وادين سلام أصحاب تميلو بأدوك جوكتين maanta waxaan ka hadli doonaa Kinemaster qaabka lyrics loogu sameeyo. Ugu horreyn Kinemaster ayaa soo furanaysaa, kadib frame ayaa dooranaysaa, waayo framekaad joog iyo jiif kaartid ayaa dooranaysaa, kadib video ama sawir hadba kaartid ayaa kusoo darsanaysaa, ayaad sawir ayaa kusoo darsanaya. sawirka markaa kusoo darsaday bin and zoom alayaa si aan shaashada dhan ula ekeysiiyo. shaashada dhan waa inaad la ekeysiisaa, equal ayaa taabanaysa. haddana equal taaban sawirka qaybta koowaad zoom ayuu noqonayaa, qaybta kalena sidiisa ayuu ku noqonayaa. marka equal ayaa taabanaysaa si uu sawirka meesha aad ku zoom garay si uu u taagnaado uusan u dhaqaaqin. kadib sawirka inta daqiiqada aad ka rabtid video ayaad cabiraysaa, 1 daqiiqo 50 second intaa rabtid. kadib black background ayaa kusoo darsanaynaa. black background muhiimaddu uu leeyahay waxaa waaye sawirka ayuu iftiimka yareynaya. haddii aad damacdid inaad qoraal ku qortid, qoraalkaas si fiican uma muuqanayo. marka black backgroundkan wuxuu kaa caawinayaa qoraalkaas inuu si fiican u muuqdo. marka asna capacity-giis waa yareynaysaa ilaa heer 80 camal oo sawirkan uu muuqdo, qoraalkii lagu qoran uu soo muuqanayo. hadda marka cod ayaan kusoo darsanayaa. codkayga video waaye. videoga markii codka lee ka rabtid waxaad extract aa leedahay. codka ayaa ka bixinaysaa, videoga iska daleedaysaa. codka iyo sawirka isla ekeysi, kadib qoraalka bilow. kadib meeshaan audio video waa fade in fade out aa kala dhahaa. marka videoga markuu bilaabanayo qaab mugdi inuu ku bilowdo, markuu dhammaanayana qaab mugdi uu ku dhammaado. sidaas ayaa la fade in fade out. marka hadba labadooda waa furanaysaa, in iyo out. qoraalka ayaad bilaabaysaa. yani marka hadda 2 layers aa isticmaalayaa, laba layer macnaha laba qoraal is dul yaala. hadba marka kaa rabtid ayaa isticmaali doontaa. foontayaasha isticmaalo waa kuwaana. hadba foontayaasha aa rabtid oo dooqa uu yahay isticmaali doontaa, iyo kalarka taas day ku taala oo hadba qof dooqiisa ayuu isticmaalay. ani hadda jaalaha iyo cadaanka badan aa isticmaala, oo qoraal weyn, qoraalka yar oo cadaankana qoraal yar oo macquul ah oo iska yar foontigiisa. marka foontayaasha aa isticmaalo waa kuwaana. hadba qoraalka marka saa u rabtid ayaad u samaysan kartaa. video qoraalku qoraysid waxaa qurxinaya waxaa waaye foontayaasha isticmaashid iyo qaabka u isticmaashid iyo kalarada. hadba marka qofka dooqiisa ay ku xiran tahay. marka haddii aad rabtid inaad qof muuqaalo oo qoraal layerkiis ah oo qurux badan inaad samaysid aad rabtid, foontayaasha aad isticmaalaysid iyo kalarka aad saaraysid intaas ku dadaal bas. muhiimadda kale waxay tahay oo asxaab badanna ay weydiisay, markay qoraalka qoraan hadalkii iyo qoraalkii aa isdabamara. marka muhiimadda ugu weyn taas waaye. qoraalka waxaa loo baahan yahay in iyo hadalka inaad isla sintid mar walba. qoraalkaas iyo codkaas sidii ay isku lahaayeen aad isku siisid, waayo haddii qoraalka iyo codka ay kala hormaraan meesha foolxumo ayaa imaanaysa. marka qoraalka iyo codka isla wad oo yaysan kala dheeraan. foontayaasha isticmaalan isla Kinemaster laga dhex heli doonaa insha Allah. video kale aan ka samayn doonaa qaabka foontayaasha loo soo degsado. midda kale waxaa waaye qoraalka markaa qoraysid in yar oo xogaa shaashada macquul ku ah inaad isla qabsatid. marka hadalkaa dhegeysanaya, markaa hadalka dhegeystid kadib ayaad qaybtaas jaranaysaa. markaa qaybta aad jaratid aad qoraal qoraysaa, waayo haddii qaybtan aad jartid oo aadan qoraalka aad qortid midda kale qoraal kusoo darsanaya aad dhahdid, foontigii iyo wax walbaa kaa halaabaya. laakiin marka hore kalarka iyo foontiga aad saxanaysaa, kadib waa dheeraynaya ilaa videoga la simee, kadib waa jarjare. codka halaha yar aad dhegeysatay
ayaad jaraysaa waa qoraysaa kadib halaha kale aad sii dhegeysanaya waa jare waa qore sida hadda aad sameynaya fontigana markuu kii koowaad aad isticmaalay bas kii koowaad aad jiide codka markaad dhegeysatid waa istaajinaya waa jare markaas ayaad codka aad dhegeysatay qoraalkiisa aad qoraysaa laakiin haddii intii fontigar haddii text yar meesha ku yaal wax ku qortay hadan text labaad aad soo gelinaya dhahdid belayska oo qoraalka yaalo iyo fontiga iyo colorkii wax walba ka halaabi karo marka hal mar aad wada saxanaysaa belayskooda iyo colorkooda iyo fontiga isticmaalaysid kadib waa dheereynay marka dheeraysid kadib waa jarjare haddii hal mar aad dheeraysid uma baahna marka in haddana colorka iyo fontiga dib aad u saxdid keliya qoraalkaas bas aad ka bedelaysaa foontayaasha waa u kala bedeli kartaa hadda laba foonta isticmaalayay hal foont kale aa soo dhex dirsaday waayo muuqaalka markuu sii socdo waxyaalaha qaar marada qaar in foontiga aa u bedeshay muuqaalka ayay qurxinaysaa ilaa hal foonta aa ku dheganaatidna badanaa waa laga hooyaa macnaha marada qaar hadalka aad soo jeedinaysid ay ku xiran tahay hadallada qaar waxaa jira hadal qaar oo iska fudud hadalladaas camal oo yar ama gaaban in fontiga u bedeshay foontayaasha inta muhiimkaana kalar gaara aad siisid inta kalena caadigooda kalarka aad isticmaalaysid aad ku isticmaashay saas ayaa qurux badan hadba marka muuqaalka aad soo gudbinaysid quruxdiisu waxay ku xiran tahay hadbasta adiga ka dhigtid haddii aad adiga si fiican uga taxadirtid oo qaabka adiga jecesha aad u samaysid hubaal qurux ayuu soo baxay laakiin qofkan waddadu maray ayaa maraya haddaad dhahdid hubaal waxaa ka halaabayo qofkan muuqaalka markuu samaynayo siduu asaga jecel yahay ayuu samaynayaa marka adigana qaabkaa jeceshahay iyo kalarkaa jeceshahay iyo wixii indhahaaga soo jiidanayo samey kadib insha allah muuqaal qurux badan waad samayn doontaa marka waxaa siisaa foontiga iyo kalarka aad isticmaalaysid iyo qoraalkaas iyo codkaas inay islahaadaan muuqaalkaaga marka wuu qurux badnaan doonaa insha allah muuqaalo kale waa idin soo gudbin doonaa qaabka effecti sida kale loo saaray waxyaala video kale oo aydan ka soo samayn doonaa insha allah